بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedka janalka qodobada ku jiraan idinku soo gudbin doonana daawadayaal waxa ka mid noqonaya xubin ka mid ah guddiga uu magacaabay madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor ee doorashada oo iscasishay haddaba waa tuma halkan ayaa daawadayaal idinku soo gudbin doona maxaa keenay inay iscasisho waan idin soo bandhigi doonaa daawadayaal qodobada kale aan idinku soo gudbin doonana barnaamij wareedkeena waxa ka mid noqonaya waa maxay sababta dib u dhigtay in ra'iisul wasaare Roble uu shaaciyay liiska guddiyada doorashooyinka Soomaaliya xog arintaasi ku saabsan ayaa daawadayaal idin wadaagi doona qodobada kale aan ku soo qaadan doonana barnaamijkeena waxa ka mid noqonaya dowladda federaalka Soomaaliya oo qaaday tallaabo dib loogu soo celinayo heshiis ay hore u baabiisay haddaba waa maxay heshiiskaasi halkan ayaa daawadayaal idinku shaacin doona qodobada kale aan idinku soo gudbin doonana barnaamijkeena waxa ka mid noqonaya ganacsade Soomaaliya oo lagu dilay wadanka Koonfur Afrika haddaba maxaa keenay dilka ganacsadahan halkan ayaa daawadayaal idinku faahfaahin doona madaxweyne Farmaajo waxa uu war ka soo saaray dib u doorashada Antonio Guterres waa qodob kale oo ku jira qodobada daawadayaal aan idinku soo gudbin doona barnaamijkeena qodobadaas faahfaahintooda ayaa goor idin soo gudbin doona daawadayaal balse markii ugu horeyso daawada muuqaalkan la garay oo la wadaaga asxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro subscribe inoo saa channelka haddii aad ku cusub tahay oo furaga baleelka si durbadii baad u hesho muuqaalada halkan soo gelino qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga inuu la wadaaga aragtidaada saliimka ah markaana daawada ku soo dhawo qodobadii durmarkaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya xubin ka mid ah guddiga uu magacaabay madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor ee doorashada ayaa iscasishay xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka Galmudug ee uu dhawaan dib u soo magacaabay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kadib xubnihii lagu celiyay ayaa sheegtay inay iscasishay Xaawo Aadan Yare Culusow Xaawakiin oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed ayaa go'aankan ku shaacisay qoraal kooban oo soo dhigtay barteeda Facebook waxaan ogeysiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay iska casilay xubinnimadii guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Galmudug ee uu magacaabay 16 bisha 6 2021 madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayay barteeda Facebook oo ku soo qortay Xaawakiin iscasiladeeda waxa keenay arrimo aniga ii gaar ah waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Galmudug oo ii gartay inaan ka mid noqdo dadka u adeegaya reer Galmudug laakiin aan ii suurtageli karin ayay tiri Xaawakiin oo aan faahfaahin ka bixin arrimaha ku qasbay iscasilada Xaawakiin ayaa dib u sii dhigaysa in ra'iisul wasaare Roble uu shaaciyay liiska guud ee xubnaha guddiyada doorashada ayada oo mar kale laga filayo madaxweyne Qoorqoor inuu soo buuxiyo booska ay baneysay Xaawakiin Qoorqoor ayaa hore loogu amaanay inuu soo magacaabay guddi ka maran saameynta Villa Soomaaliya inkasta oo taasi ay ka careysiisay taageerayaasha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddaxileedkiisu uu dhamaaday markaana daawadayaal waxaan isla eegi doonaa sababta dib u dhigtay in Roble uu shaaciyay liiska guddiyada doorashooyinka qodob ka mid ah qaybta kore ayaan ku soo xusnay daawadayaal waxaa ilaa hadda aan si rasmi ah loo shaacin liiska guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed kuwaasi oo xubno ka mid ah guddiyadaasi laga keenay cabasho ayada oo qaarkood la bedelay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in dhawaan la shaacin doono liiska guddiyadaasi hase yeeshee si cad uma sheegin sababta ka dambeysa in ilaa hadda uusan si rasmi ah u shaacin xogaan eelin isla markaasina ay noo xaqiijiyeen la ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegaysa in sababta u weyn ee dib u dhaca ku keentay in liiska guddiyada doorashooyinka uu shaaciyay ra'iisul wasaaraha ay tahay guux iyo tabasho weli ka taagan guddiyada doorashooyinka ee wax ka beddelka lagu sameeyay waxaa taagan qayladhaan iyo cabashada ay dhinacyada qaar ka qabaan guddiyada Somaliland Galmudug iyo xubno ka mid ah guddiyada Hirshabelle oo qayb ka yihiin xubno ay saameysay eedeynta mucaaradka ra'iisul wasaare Roble ayaa isku dayay in koorinta uusan shaacin liiska guddiyada doorashooyinka uu meesha ka saaro diidmo hor leh oo dhinacyada qaar kaga falceliyaan liiska midaas oo uga sii dari karta xaaladda cakiran ee dalka waxaa gabi ahaanba xafiiska Roble loo gudbiyay xubnihii guddiyada doorashooyinka ee wax ka beddelka lagu soo sameeyay oo ahaa 34 xubnood isla markaana hadda waxa aarsan ay tahay kaliya in liiska guud uu shaaciyo xafiiskiisa kadib marka si buuxda loo xaliyo cabashada taagan inkastoo xubin ka mid ah guddiyada doorashooyinka ee uu soo magacaabay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ay iscasishay madaxweynaha Galmudugna looga baahan yahay inuu soo magacaabo xubin kale
ka hor inta aan la shaacin liiska guddiyada doorashooyinka oo uu ku dhawaaqayo xafiiska ra'iisul wasaare Roble. geesta kalena daawadayaal haddaynu fiirino dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo dib loogu soo celinayo heshiis ay hore u baabi'isay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo ay dib ugu fasaxayso dhammaan shirkadaha shatiyada loo siiyay in ay shaqaalaha Soomaaliyeed u dhoofin karaan dibadda. wasiirka cusub ee shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Cabdiwahaab Ugaas Xuseen ayaa qaaday tallaabadaasi kadib markii uu wasiiru dowlaha wasaaradda uu baabi'iyay heshiiskii hore loola galay shirkadahaasi ayada oo wasiirka uu mar kale dib u soo celiyay shalay. qoraal ka soo baxay xafiiska wasiir Cabdiwahaab ayaa lagu sheegay in go'aankan uu yimid kadib markii ay saameyn dhaqaale ku yeelatay shirkadaha shatiyada u haysta shaqo siinta dibadda iyo shaqaalihii loo dhoofin jiray dalka dibaddiisa. wasiirka ayaa xusay in soo celinta heshiiskan ay kol hore wasaaraddu laashay ku timid tixgelinta cabashada xoogsatada Soomaaliyeed oo haysata ruqsadda shaqo siin dibadeed iyo dalku galka visa si ay ugu dhoofaan ugana soo xoogsadaan dalalka ay kal hore ka heleen ogolaanshaha shaqo. go'aankan dib loogu furayo dhoofinta shaqaalaha dibadda ayaa imaanaya iyada oo muddo bil ka hor uu wasiiru dowlaha wasaaraddaasi Cabdi Axmed Qaasim uu baabi'iyay heshiiska shirkadaha isla maalinkii xilka loo dhaariyay wasiirka cusub, taasi oo shaki badan uu xilligaasi ka dhashay. si kastaba ha noqotee mas'uuliyiinta xukuumadda ayaa inta badan lagu eedeeyaa in aysan ka marnayn masaalix shakhsiyadeed heshiisyada ay la galayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa kale ay saxiixaan intaba. welina daawadayaal waxaa daawanaysaan barnaamij wareedka idinkaaga imaanaya janalka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka. bal mar kale aan ku xasuusiyo in janalkeena subscribe saarto oo furata gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaalada aan halkan soo gelino qaybta hoose ee commentigan aragtida inagula wadaag muuqaalkana la garay si uu saaxiibo fara badan u gaaro. markaana ganacsade Soomaaliya oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika. wararka naga soo gaaraya dalka Koonfur Afrika ayaa ku waramaya in saacadihii la soo dhaafay muwaadin Soomaaliyeed oo sidoo kalena ka mid ah ganacsatada ku dhaqan gudaha waddankaasi lagu toogtay gobolka Limpopo. marxuumka oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cali Kaariye ayaa dilkiisa waxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn goobtiisa ganacsi oo ku taala gobolka Limpopo ee dalkaasi. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in muwaadinkaasi Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah la dilay xilli uu ku guda jiray howshiisa shaqo maalmeed. qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika ayaa sidoo kale sheegay in kooxdii ka dambeysay dilkaasi ay goobta isaga baxsadeen falka kadib. sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan booliiska Koonfur Afrika oo baaritaano kooban ka sameeyay xaafadda uu dilka ka dhacay, balse kama aysan hadlin dhacdadaasi. Soomaali badan ayaa ku nool dalka Koonfur Afrika kuwaasi oo ganacsiyo kala duwan ku leh magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi iyagoo inta badan wajahaya xaalado adag. si kastaba ha ahaatee muddooyinkii dambe ayaa waxa isa soo taraya dilka, dhaawaca iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanaya ganacsatada Soomaalida ah ee ku nool waddanka Koonfur Afrika. ugu dambeyn daawadayaal madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa uu war ka soo saaray dib u doorashada Antonio Guterres. madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ka hadlay dib u doorashada Antonio Guterres oo mar kale loo dhaariyay xilka xogayaha guud ee qaramada midoobay. ugu horeyn madaxweyne Farmaajo ayaa dhambaal hambalyo u diray Antonio Guterres oo mar kale qaramada hogaaminaya 5 sano ee soo socota. sidoo kale madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda federaalka ay soo dhaweynayso inuu mar kale Antonio Guterres noqdo xogayaha guud ee qaramada midoobay. ugu dambeyn madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa shaaca ka qaaday in xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dowladda ula shaqeyn doonto si hagar la'aan ah. Guterres oo ka hadlaya guushiisana wuxuu ballan qaaday inuu halkiisa ka sii wadi doono dadaaladii uu waday isla markaana uu si dhow ula shaqeyn doono dowladaha caalamka. waxaan ku bixin doonaa wax walba oo aan ku xaqiijinayo inuu soo ifbaxayo kalsoonida u dhaxaysa iyo ummadaha waaweyn iyo yaryar si loo dhiso buundooyin iyo inaan si hagar la'aan uga qayb qaato dhismaha kalsoonida, ayuu yiri Mr. Antonio Guterres. qaramada midoobay ayaa Soomaaliya la leh wada shaqeyn xoogan iyada oo ka taageerta arrimo dhowr ah sida dhaqaalaha, siyaasadda, ammaanka iyo dhanka bini'aadanimada. guud ahaan daawadayaal waa inaga inta barnaamij wareedka YouTube-ka. bal haddii aad daawatay muuqaalkan la garay si uu saaxiibo fara badan u gaaro, sidoo kale daawadeen haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saaro oo fura gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaalada aan halkan soo gelino. qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo ee commentigana waxay nagula wadaagi kartaa aragtidaada saliimka ah
tan iyo barnaamijkan kiisa kalena inta dib isugu kulmi doono sidaas nabadgelyo.